sagaal ka eedaysane toddoba waa ajnabi lix ka mid ah waxay ilaa Morocco oo North Africa ah uga soo safreen oo Puntland iyo Soomaaliya u yimaadeen inay urur argagixiso ku qanceen waxaan maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol horkeenay sagaal eedaysane kuwaas oo laba Soomaali tahay toddobana ay ajnabi tahay toddobada ajnabiga ah lix ka mid ah waa Moroccan oo waxay ka yimaadeen wadanka Morocco nin ka mid ah waa Ethiopian isaguna labana waa Soomaali madaxda gudoomiyaha garsoorayaal sagaalka eedaysano maxkamadda hortaagan waxaan toddobada ajnabiga ah waxay wadamadoodii uga soo safreen taraag inta lagu soo galeen inay ka mid noqdaan ururka argagixisada Daesh safarkay soo galeen dhulkooda uga yimaadeen waxay ku gaareen buuraha Calmiskaad oo talis oo ah ururka Daesh halkaas ay tababaradooda ku qaateen hubkii ku dagaalamayeen lagu qaybiyay kadib culaysyo ka dhacay meesha ayaa ka liftay inay noloshii meesha hayn waayaan labada Soomaalida ah ninka la yiraahdo Cabduqaadir Jaamac Maxamed ina caasho shire 32 jir ah wuxuu waday gaari dhayna ah kaasoo runtii sidii rar qayb kamid ah ay isticmaasho ururka argagixisada rarkaas uu waday waxa kamid ahaa batariyada loo isticmaalo qaraxyada waxa kamid ahaa raashin noocyadiisa kala duwan waxa kamid ahaa kabaha ee xirtaan nimankaasi oo daba xirka ah waxa kamid ahaa jaamaha kabaha la saaro oo marka kabuhu maadaama ay meesha buurley tahay ay salka ka dhamaadaan jaan la saarayo waxa kamid ahaa mashiinadii lagu talaayay kabaha oo runtii iyo dareeska iyo wax walba lagu talaayay waxa kamid ahaa jaakadihii dhaxanta oo iyaguna tiro aad u badan ah waxa kamid ahaa sabaradii lagu qodayay difaacyada iyo godadka lagu qodayay marka madaxda gudoomiyaha garsoorayaal sagaalka eedaysane toddoba waa ajnabi lix ka mid ah waxay ilaa Morocco oo North Africa ah uga soo safreen oo Puntland iyo Soomaaliya u yimaadeen inay urur argagixiso ku qanceen نعم وقالوا أن دولة إسلامية ونريد أن نبني الصومال وكذا نريد ثمة تكون جيدة فهمت؟ أو ما لها لأن الدولة الإسلامية ولا صومالي تكون جيدة وكذا دولة في عام صومالي وإسلامية نعم هكذا استقطبونا أبدا لكن نحن جينا من أجل العمل والشغل لكن لما وصلنا ما وجدنا ذلك ما أعطونا فلوس وجعلونا كالعبيد ففررنا منهم أنا شق أهان أنا نسوي شيئين إنه ما نشقينه marka wax badan isbedeleen oo lagu shaqeyseen أدخلونا شهر تدريب بلا تدريب aan qaadanay toobas سلاح مثل هذا قري كعملتي قالوا لنا هناك حياة هناك عمل هناك يعني أنا ما قلنا أولاد عاش لكن إحنا لهن عندما أتينا لم نجد وجدنا خلاف ذلك بدنا أسبدل وإحنا شيء وحكلنا بدنا جرب بدل بدن طلبوا مرة ثانية أن يسرعوا الإجراءات لرجوعنا إلى بلادنا وشكرا لهم جزيلا. horta ma siin dawladda Puntland iyo maxkamadda ina qabriga aan ku jirnay naga soo saareen aka garabiyada daysan gabadh wuxuu yiri muddo badan baan macnaha xabsi ku jiray wadankayga ilaa ay celiyaan asnaya anoo gaarigayga la joogo ii yimi wuxuu yiri alaab baan ku saaraya golis leeda alaab shirkad leedahana in la furfuro ma aha waa mamnuuc wuxuu ii keenay matoor safiita ku qafac 23 bisha baa la tusay waxa waa mishiin laba bilood baan waxaan dhiban xiran matoorka golis waxa la socday jawaano aniga timirsan crispo ahaan uga soo raacay xaggan baan nimi sabab adu asbuuc meelahaas joognay ana subax dameeto soo wacano وحياد بحنا هاسي ويمو هاس بانو تجاوب ككنترول كان لك سوق بس sidoo maxkamadda horta ka sheegay horta ayuu wax aad xafiiska xiraan timisoo jeedin
qoraana qoraalka soo gudbiyey sidoo kaleeto cabdiqaadir jaac maxamed eedda loo haysta ma aha mid dembi ka dhalanayo xafiiska xeerlaalintuna ma caddayn qaabka ay dembi ku tahay sidoo kaleeto isaguna ma qiran in alaabtaas tahay alaabtii uu siday oo mana caddayn karo in alaabtaas tahay alaabtii uu siday sidaa darteed waxaa maxkamadda sharafta ka codsanaa in kiiska cadaalad laga falo lagana laalo eedda loo haysto muwakilkayga iyadoo la raacayo xeerarka waddanka u yaala muwakiladooda kale ee ajaanibta ee xasan maxamed xasan iyo axmed najwi iyo khaalid lada iyo maxamed bin maxamed axmed ridwaan cabdiqaadir alcismaani iyo axmed xuseen ibraahim waxay maxkamadda horteeda ka sheegeen inaanay u imaan fikir la xiriira ururka daacish inay ku biiraan laakiin ay ku yimaadeen qorshe kale oo khaldan laakiin markii dambe afka laga geliyay ururka daacish mudan gudoomiye mudanayaal in qofku fikirka uu lagu khaldo oo mu'amaraad iyo shirkado waaweyn baa dadkan ka shaqaysta arrimahan dadka masaakiintana waa la geliyaa mar haddii ay soo dhiibeen oo dawladdii iyo ciidankii soo dhiibeen waxaan codsan lahaa in dadkoodii dawladdoodii lagu wareejiyo garmaqalka eedeysanayaasha maxkamadda horjooga waxayna ku egtahay intaas waxaa noo balana berri subax insha allah wixii gaar ah oo ah go-aankii maxkamadda oo halka laga dhawaaqi doono maxkamaddana waa xiran tahay